السلام عليكم والله يا المانتو waxaan la hadnaa dadka reer Djibouti walaal in yar bay noo hadhay sarakaca ninkan waa la iska kaxeeyo Libya one question before I pass Egypt the microphone saaxiibkay Ali Abdullah Saleh maanta socday isagoo ku xiga walaalayaal sarakaca habaqina suuqa u soo dhaadhaca ninkan naga taga dhaca oo naadsantii Get out, EOG! Get out, EOG! Get out, EOG! Full camp, EOG! EOG! Full camp, EOG! Dégage, EOG! Ismail! Down, Gaddafi! Down, Gaddafi! Down, Gaddafi! السلام عليكم وحل الله يا أحمد عثمان waxaan leeyahay waxaan maanta halkan u soo baxnay annagoo ka warwarsan siyaasadda Djibouti iyo maaragtay xadgudubka xuquuqda bini'aadamka lagu sameeyo markaas waxaan leenahay Ismaaciil Cumar laba teerood waa qabatay aad baad ugu maadsantay waxa waddanka u qabatay waxaan leenahay iska tag sida adduunyada ka dhacday isbedel buu waddanku rabaa dad kale jiro waddanka maamuli kara waxaan rabnaa doorasho xaqa society maaragtay civil democratic rabnaa waxaan leenahay saaxiib intaad qabanisay waad qabatay waddanka daaf oo dadka u daaciday doonayaan had doortaane aad baad ugu mahadsantiin muddo reer Djibouti soo baxdayna halgankiina maaragtay halka ka sii socdo annagu dad diasporada nahayna waan taageersanahay waan ag joognaa adduunka iyo dawladda harbarna waxaan sheegaynaa ila Djibouti cadaalad darro ka jirto ila shacabka Djibouti is ag taagaan maanta wixii dhacay maaragtay waxa ka mas'uula ninka maanta jooga Ismaaciil Cumar Gille marka waxaan leeyahay saaxiibayaal hadaalina وعن بن علي وصعدي صالح وصعدي اسماعيل عمرنا إن شاء الله دي لا يراه وصعنايا واد ما